markaan aragnay dhuuntiisa dheer iyo socodkiisa waxaan ugu magac darnay xayawaankan maanta wixii ka dambeeyana xayawaankan xamse cabdi barre baa la yidhaahdaa qodobka koowaad ee barnaamijka gefkaas ayaan uga hadli doonaa qodobka labaad shirkii jayna ka socday oo madaxda afrika ay ka qayb galayeen durbadiiba soomaali waxay ka dhex aragtay khiyaanada iyo weji beddelka madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle annagu waan ognahay inuusan wax wejiya lahayn ismaaciil cumar geelle markastana ka shaqeeyo sidii soomaaliya bohol loogu ridi lahaa laakiin qofka ku lunsan waa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya maxaa ka dhacay shirkii jayna wuxuu u tegay madaxweyne xasan sheekh ismaaciil cumar geelle u tegaya wuxuu ku yidhi madaxweyne waa inaad la fadhiisataa la hadashaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed hadda hadalkayga si fiican u dhegeyso hadda waa ismaaciilkii ay damujadiid noogu sheegayeen inuu yahay walaalka ummadda soomaaliyeed maanta etoobiya looga heelinayaa waxaan rabaa qodobka labaad ee barnaamijka arrintaas si gaara inaan ugu falanqeeyo hadduu alla idmo qodobka saddexaad midnimada ummadda soomaaliyeed maanta waxay maraysaa meel mugdi ah haddii sidan lagu sii fiirsado soomaaliya mar kale ayay kala tegaysaa sidii 1991 waxaan rabaa maanta inaad ila aragtaan xaqiiqda muuqata kaftan iyo siyaasaddu waa ka gudubtay hadda waxay taagan tahay waa lafihii ugu dambeeyey soomaaliya lafahan isku haynaa mase waynu kala dhaqaaqnaa hadalku isma saarna qodobka saddexaad ee barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa kusoo dhawaada channelka youtube-ka aftahan production waa channel aad xaqiiqda kala socoto runta lagu sheego si aynan barnaamijyada kuu siigin channelka subscribe ku saarnaado haddii aad channelka ku cusbayn oo horey channelka subscribe u saaratana videoga like noo saara like to meel fog bayna gaarsiisaa anaga baqayne soo dhawaada ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wuxuu daacad u ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud reerka hawiye ayuu siday rabaan u yeelayay wuxuu xamse cabdi barre aqbalay dulmi iyo weerar lagu yahay reerka uu kursiga ku matalo ee daarood indhahu istiray dhagahu istiray raalli buu ka noqday in reerkiisa la bahdilo waxaasoo dhan wuxuu u sameynayay war reerkan ra-iisul wasaare kaa dhigay sidii doonaan u yaala markaad adigu dulqaadkaagu uu bato dadka qaar waxay ku haystaan inaad nacas tahay laakiin ra-iisul wasaaruhu mar hore ayuu koobkaas qaatay ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa soomaali way tiraahdaa qof walba meeshuu isdhigo ayaa lagu qalaa doqonnimadii xamse cabdi barre maanta waxay keentay in magaalada muqdisho looga maadaysto maanta waxay taagan tahay xayawaan muqdisho lagu daryeelayo nin barfaysara oo caana oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ina adeerkii ah bal hadalkaas si fiican dhegeyso kow xayawaan ayaa loogu magac daray xayawaan muqdisho lagu daryeelo ayaa loo bixiyey xamse cabdi barre yaa u bixinaya qof soomaaliyeed oo caana oo ka soo jeeda reer muqdisho oo madaxweynaha ina adeerkii ah waa barfaysar yaxya sheekh cabir haddaadan aqoon u lahayn hadda baro waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud in adeerkii qofka u bixiyey xamse cabdi barre xayawaan uu asaga dhaqdo wuxuu yidhi dhuuntiisa dheer iyo socodkiisa markaan aragnay xayawaanka aan guriga ii jooga ee aan daryeelo ayaan ugu magac darnay hadda hadalkaas si fiican u dhegeyso waa xayawaan aan daryeelo ayaan ugu magac darnay maxay ka turjumaysaa waxay ka turjumaysaa anaa kuu sheegaya warku waa cadiya horta fasir uma baahna dadka intooda badan way fahmeen waqti badan in lagu lumiya maaha laakiin waa soo koobaya xamse cabdi barre waa xayawaan annaga aan korsanno wuxuuna la mid yahay dabjoogta ama duurjoogta aan aqliga bini-aadanka lahayn micnaheedu waa xayawaan hawiye ay iska haystaan kelmaddu saasay u fasirmaysaa ma laga yaabaa marka qof soomaaliyeed iyo dowladnimo soomaaliyeed oo nidaam 4.5 ku shaqaynaysa in maanta reerka uu kursiga ku matalo ee daarood ay maqlaan in magaalada muqdisho uu xamse cabdi barre ka yahay xayawaan waa kaf weyn qofka siyaasad ahaan waa iskaga soo horjeedi kartaan
قفوض معارضة كرتا لكن قف بلي آدم أو نول إن الحيوان لا دينا دكتور وحلا أخباري كربا لكن أساقا أسئي محامو قوان كرنا حمزة عبد البروح أخباري دادكي سينوغو هرباندو وحالي قد دعيي حرتيقا قارهان مجرتين كنيهين علو الصومالي وو أخباري نمركا أخباري دادكي سا إن لغو هرباتو يومانتا إن حيوان لغو تلمامو وهو حلفلي لكن نسيب دهلا لبالا وحي تاي قفك حيوان كنت البابي حمزة عبد البري ومدحوين حسن الشيخ محمود الهدركي ونين هوية ونين هرابة ونين أبقالة ونين وعيسران فهمتين سوما بل الشعب كالصوماليات يقيمته سير كوميتيس كان ودينيا سيدي واركان قدر كلمات من لماذا ومد الصوماليات ولا ريالو نب فربضان باناقا الصومالي ما أنت وحن أجيلا إن من لماذا ومد الصوماليات أي كلا فرفريان أو أي صومالي كلا دريان dad kooban oo isku qabiila aniga dadka maanta wax kala diraya ayaa igu qabiila bal nasiib darrada ay haysataa dadka maanta wadankan 1999kii u celinaya qaarkood weeye dadku ma wada xuma ummadda Soomaaliyeed waa sida qofka bini'aadanka farihiisa oo kale dad wada xun ma jiro laakiin dadka qaar baa xumaada anigu marka hadday ilma adeeraday Soomaaliya kala dirayaan inaan anigu ilma adeeraday dulmigaas ku taageero sumcad iyo sharaf mana aqbalayo sidaa darteed dalkan Soomaaliyeed siyaasadda waa la isku diidi karaa xasan sheekh maxamuud waa mucaarada kartaa xamsa waad ka soo horjeedi kartaa nidaamka dowladnimo ee hadda jira mucaarada ku noqon kartaa muxaafadad u noqon kartaa laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan wadajirka Soomaaliyeed laakiin hadda waxaan arkaa Soomaali 1999 in loo celiyo la rabo meeshii aan ka soo laabanay ayaan u soconaa maanta dardaaranaan leenahay beri laakiin haddaan kala tagno waxa weeye waa 30 sano oo dib la isku raadin doono 30 jirka i daawanayo 60 jir baad noqon doontaa dowladnimo Soomaaliyana 60 jirkaaga ma sukayn doonto haddaadan hadda ku baraarugin nidaamka qabiiliga ah ee Muqdisho laga abaabulayo waa nasiib darro dadkuna isku ma jiraan reer yaroo kooban qayb ka mida weeyaan aynu tooshka la dul istaago waxaadna ogaataa haddii maanta dulmigan la wada eegto berito qof walba xanuun bay ku noqonaysaa aan aragno meeshay ku dambayso hadduu alla idmo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle inuu nin xun yahay Soomaali inay soo kacdana uu diidan yahay annaga naguma cusba cadowtinimadiisaan ognahay dulmigiisaan la soconaa laakiin dad baa lunsan oo Ismaaciil Cumar Geelle weli ku lunsan ka warrama shirkii Jayna madaxda Afrika ay ka qayb galayeen ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku yiri madaxweyne ko waa in aad wada hadal la fariisataa oo aad wada shirtaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waa in aad la fariisataa oo la shirtaan dadku waxay arkayeen intuu shirkii socday madaxweynaha Jabuuti oo gacmaha haysta ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu maanta Ismaaciil Cumar Geelle meel fagaara ah ka muujiyo garab istaagga Itoobiya ma ahayn markii koowaad maxay la dowladdiisu waxay tiri Soomaaliya iska day anaga bad idin siinayna waxa kama jiraan bad ay bixinayaan ma jirto laakiin waxa weeye ku digasho dad baa u jabay Ismaaciil Cumar Geelle dadka u jabay oo ku sii diganaya anigu ma ahayn maanta maalintan idin bilaabay in Ismaaciil uu yahay cadowga qarannimada jiritaanka dowladnimo ee Soomaaliya laakiin dadka qaar waxay i haysteen inaan dulminayo Ismaaciil Cumar Geelle laakiin maanta indhihiinaad ku aragtaan Itoobiya oo dulminayso inuu la saftay wixii ku soo kordha marxaladahaasi iyo xaaladaha kala duwan ee arrimaha siyaasadda iyo guud ahaanba waxaa jira waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo waa haddii aad ku xiran tahay channelka YouTube-ka Aftahan Production intaanu barnaamijkan mid ku kulmi doono waa Cabdullaahi Barwaan oo idin meel kastoo dunida aad ka joogtaan nabadgelyo